بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم إذا الكيم بمال كستو أجوكتان سوى البوي نود داون إنسان هل كاين قد داون إنسان وعجير الشو وعنيقو فرحان عبد الله عبدي عجير يا برنامج كلابتا قارة إذا لا سعود سيدون أنا قلت لك لي تمانك فنانين الصومالي ده كوو ومعد كمعان طبعا وحان أصو حلني تو فنان وأنا سلينا هي وفنانين أنا جو كسو حلني داو الشدو ده وحات قرن كرتا فنان قعد كيسونو معاي هاي سيدو داودياشي سوسوجيتي فنانين محاجرو أسبوع يكير بكو داونيان 1 مليون إنك بدما galabta halkan ayaan ku la faguri doonaa anigoo farxaana ayaa galabta idin soo jeedinaya ee mar kale daawasho wacan fanaanka ugu horeeyo hadaan soo qabano waa fanaan aad u cod macaan idinkuba aad wada garanaysaan fanaankuna waa fanaanka weyn ee Guleed Simba fanaanka Guleed Simba waa fanaan aad iyo aad u cod macaan oo dhammaan daawadayaasha waa fanaan aad u cod macaan waxaad ka garanaysaa inuu codkiisa macaan tahay heeskiisii ugu dambeeyay ee maanka deeqay waxa in ka yar isbuuc ku daawatay 1 milyan iyo 300 oo kun oo qof taasina waxay ka dhigan tahay fanaanku inuu yahay fanaan aad u cod macaan haddana daawasho badan fanaanka daawashadiisa ayaa waxay ka turjumaysaa in fanaankani uu leeyahay asxaab ku xiran oo heesiisa si toos ah ula socota marka Guleed Simba ayaa waxaan u soo xulnay inuu yahay fanaanka sanadka ama fanaanka ugu codka macaan Guleed Simba fanaanin kale oo ka cod macaan way jiri karaan balse marka aan soo koobay aniga aragtideeda iyo dhammaan daawadayaasha daawatay heesaha ay soo galiyeen YouTube channel-ka ayaanu ka soo doortay dabcan haddaan soo qabto fanaanka labaad ee ugu codka macaan fanaaniinta Soomaalida uguna daawashada badan waa fanaanka lagu magacaabo Dayax Dal Nuurshe dayaxa caasimadda Axmar waa fanaan aad u cod macaan codkiisa iyo heesiisa isku dheelitiran yihiin fanaankan Dayax Dal Nuurshe heeskiisii oo qaaday ee ugu dambeeyay ee dameer gaari waa faras in badan asxaabta kamida fiyuskiisa way aragtay waa fanaan cod macaan dad badan ay ku xiran yihiin gaari waa faras fanaanka saddexaad haddaan soo qabtana waa fanaanka reer Jigjiga waa Suldaan Seraar Guhaad waa fanaan aad u cod macaan fanaanka heeskiisii ugu dambeeyay isna 1 week ayuu waxay ku gaartay 1 milyan people inay daawadaan heeskaasi Suldaan Seraar oo kamid ah fanaaniinta reer Jigjiga kuwooda ugu caansan kana mid ah fanaaniinta geyga Soomaaliyeed kuwooda ugu magac dheer fanaankani Suldaan Seraar Guhaad waa fanaan saameyn ku leh gudaha Soomaalida fanaaniintooda marka la sheego dabcan waana fanaanka sanadkan qaatay fanaanka sanadka ugu wanaagsan ee fanaaniinta Soomaalida dabka igu hura waxay daartaa nalka darajada doorka noloshe haylada daginee lambarka afraad fanaanka ugu codka macaan fanaaniinta Soomaaliya marka hadda soo qabto adigu yaa isleeda dabcan fanaan booniyadada ku soo dhacay balse fanaanka afraad ee ugu wanaagsan fanaaniinta Soomaalida waa fanaanka aad ku daadiyar waa Marwaan Yare waa fanaan aad u cod macaan heesiisa in badan asxaabta kamida ay soo jiitaan Marwaan Yare ayaan u soo xulnay inuu noqdo fanaanka ugu codka macaan fanaaniinta Soomaalida waa fanaan ku wanaagsan qaabka ciyaarka codka iyo muusigiisa isku dheelitiran yihiin Marwaan Yare wuxuu noqday fanaanka afraad ee ugu wanaagsan fanaaniinta Soomaalida qaxula bili aadam iyo waa bili sangoba markani asoo qabto fanaanka shanaad ee ugu codka wanaagsan fanaaniinta Soomaalida waa Maxamed Qadar Ibrahim Keyo waa fanaanka shanaad ee ugu codka macaan dabcan fanaankani inta badan heesiisa waxay ka turjumaan dareen guuniya heeskii oo u qaaday ciidanka in badan dadka kamida oo la wada sugay way garanayaan iyo heeskii walaalnimo iyo heesa badan oo fanaankani uu qaaday waa fanaan aan isleenahay waa fanaan saameyn ku leh dhanka bulshada marka la yiraahdo fanaankani asna wuxuu kamid yahay fanaaniinta ku nool gudaha magaalada Muqdisho ee saameynta ku leh dhanka iyo aroosyada magaalada Muqdisho aad u kala kiciyo وانا فنان codkiisa iyo muusigiisa isku dheelitiran yihiin Qadar Keyo waxaan u soo xulanay inuu noqdo fanaanka shanaad ee ugu saameynta badan fanaaniinta Soomaaliyeed waana fanaan aad u cod macaan markani haddaan soo qabto lambarka 6 ee fanaanka uu noqon doono iyo fanaanka ugu codka macaan ee soo cariirsaday lambarka 6 mar hadday hartaba in ka yar 4 fanaan waa fanaan aan iraahday waa fanaanada Farxiyo Fiska وفنانة عدود معان طبعا فرحية فيسكا طبعا كيسانة يقدم بيسي وحي كامي دهت فنانين تصومالي ده كوو وقعد كما وران كانوا حليمة قليف مغالك عصو وفرحية فيسكا
fiiska oo ka mid ah fanaaniinta 10 sano ugu saameynta badan ayaan u soo garanay inay noqoto fanaanada lixaad ee ugu saameynta badan ama ugu codka macaan fanaaniinta sanadkan jira annaga oo ku qiimeynay heesaheedii farxiyo fiiska oo in badan ay garanayaan in 2011 ay ku xasuustaan heeskeedii wadnahi dhagle lambarka toddobaad aan soo qabto ma fanaan mise waa fanaanad dabcan sidaad fiiska hore ugu maqasheenba markani waa fanaanada aanan ka dhicin waa dhanka iyo hablaha Soomaaliyeed waa fanaanad aad u cod macaan waa kii jaamac oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu codka macaan dabcan in badan way garanayaan kin jaamac inay tahay fanaanad aad u cod macaan dabcan waxaa lagu xasuustaa showgii ay ku qabatay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya inuu ahaa show aad iyo aad dhalinyarada iskaabulada ugu wanaagsanayba kin jaamac waxay noqotay fanaanada toddobaad fanaaniinta Soomaaliyeed tan ugu codka macaan inta isbareen hadana kullu may billiya labo kullu may billiya labo lambarka 8aad iyo fanaanka ugu codka macaan fanaaniinta Soomaaliyeed waa fanaan waa legend waa in badan fanaan aad wada garanaysaan codkiisana aad ku raaxaysataan وعوالي آدم عوالي يرى وفنان كوين إيرير جيبوتي أهنا فنان كأمد الصوماليات وفنان إن كبدا لح يتوانسن كجري جودها فنكا السبب أو فنان سامين تيسو إن بدن أصحابته كحيران يوتيوب كان أيوة قرنا يان إسلام الصومالي ده وحنو قرنا إنه نقضو فنان كسيدات أو سامين تبدن فنانين الصومالي ده شليت لهي حبينا قصو كليح لهي أعيفيا حداد إسلهي طبعا markaan hadaa soo qabto fanaanka sagaalaad ama galay lambarka sagaalaad ee qiimeynta fanaaniinta ugu wanaagsan fanaaniinta ugu codka wanaagsan fanaaniinta Soomaalida waxa uu noqday fanaan aad wada garanaysaan Dalmar Yare waa fanaan cod macaan fanaankani ayaa noqday fanaanka sagaalaad sida anagu ku qiimeynay ee ugu codka macaan fanaaniinta Soomaalida Dalmar Yare waxa uu soo cariirsaday booska sagaalaad xaraaday qabeel yahay ugu aan isdalmagin markani aan soo qabano lambarka ugu dambeeyay ee fanaanka oo qalma fanaanka 10aad ee fanaaniinta Soomaaliya maadaama aan ku soo koobnay 10 fanaan inaan ku soo qaadan barnaamijkeena aad ka daawanayseen Caga Yara Show waxa uu noqonayaa fanaanka lambarka 10aad soo cariirsaday fanaanka weyn ee Idla Cabdullaahi Nuune Idla Yare waxa uu noqday fanaanka 10aad ee ugu codka macaan waa fanaan reer Nairobi aad u cod macaan dhalinyarada asxaabtiisa badan ay jecel yihiin fanaankani Idla Yare ayaa ka mid ah fanaaniinta aad u kala kiciya aroosyada ka dhaca magaalada Nairobi isaga oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu codka macaan anaguna galabta aan u soo qaadanay fanaanka 10aad ee ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu codka macaan intaana waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii aan ku qiimeynay fanaaniinta Soomaaliyeed ilaa 10 fanaan aan ku soo qaadanay dabcan waa aniga aragtideeda inaan isleeyahay fanaaniintan waxay yihiin fanaaniinta Soomaaliyeed ugu codka macaan adiguna waa commentiga ayaad inoogu reebi kartaa fanaanka aad isleedahay waa fanaanka ugu codka macaan Soomaalida anigoo farxaan ayaa idin la socodsiinayay halka aad ka daawanaysaan waa Caga Yara Show waxaan ku weydiisanayaa walaal inaadan hilmaamin like iyo share iyo commentiga baad isku keen dartiid subscribe-na aadan inaga iloobin mar kale barnaamijkan la intaan ku kulmeeno waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaana Allah